shantaa boqol cawaankaana la geeyo caasimadii kadib loo qabta 3 sano 4 sano kadib waxaa la arkayaa qoladii cilmiga lahayd ee aqoonta lahayd ee caasimada laga keenayna iyagoo dhulkii nolol ka suura geliyay heeray gaadhaba qoladii kalena iyagoo intiina jajabiyey wasakhna ka dhigay wasaxarna ka dhigay baa la arkayaa buu si qofka bani aadamka ah uu qiimihiisa u helo waxaan odhan lahaa kun khad haddii qofku uu hoosta kaga qoran karayo ha kaga qorta arrinta noocaasa marar badan baan ku celceliyaa waxa weeyaan qiimaha qofka bani aadamka wuxuu ka qaataa ilaahay hor agtiisa iyo naftiisa ee qiimaha kama qaato bani aadamka kale waana inta luntay imaka arrintaa mafhuumkaasi uu lumay qiimahana qofku wuxuu ka raadinayaa meelo kale halkani waa Meehal Podcast waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Bilaal Mustafa barnaamijkan waxaa soo geliyay Bilow Capital Bilow Capital waa isku xiraha maalgashadaha iyo loo maalgeliyaha si aad wax badan uga ogaatid description-ka hoose ayaad ka helaysaa ciwaanadooda amaba booqo bogowga rasmiga ah www.bilowcapital.com ma ogtahay dunidan korkeega in shay kasta qiimo leeyahay aragtidaada adiga maxaad u malaynaysaa shayga waxa qiimo u yeelaya amaba qofka bini'aadanka ah qiimaha waxa u yeelaya sabab maxay qiimaha insaanku muxuu yahay kormu u kacaa hoos mu u dagaa su'aalaha iyo su'aalo ka badan ba waxaanu kaga jawaabi doonaa madasheenan iyo xalqadeenan maanta waxaana inoogu martiyaa ustaad Xamse Xabiib oo ah asaasaha Razin Training Center madasha kubcinta xirfadaha dhalinta ustaad bal maxaa ku dari karaa inta bismillah wa macallin khayrka jecelo saalixiinta jecelo inuu muslix noqdana jecel insha Allah ma sha Allah ustaad soo dhawow kuna soo dhawow Meehal Podcast bismillahir rahmanir rahiim aad iyo aad baad maasantahay Sayd Bilaal iyo Meehal Podcast waan ku dhawahay waan insha Allah rajaynayaa inaan waqti fiican iyo wax wanaagsan wadaagi doono haddii aanu iska guda galno barnaamijkeena ustaad balse aynu isla fahanno maadaama mowduuca aynu ka hadlaynaa uu yahay qiimaha insaanka waa maxay qiimo bal intaynanu insaan u gali bismillahir rahmanir rahiim qiimaha waxa la yiraahdaa markan taariifka iyo qeexitaankiisa si cilmiya u eegno waa wax kasta oo dadku ay wax u huraan baa la yiraahdaa ay wax geliyaan wax kasta agtooda qiimo kale ama waqti ha noqdo ama maal ha noqdo ama mood ha noqdo ama fikir ha noqdo wax kasta agtooda wanaag ku leh ama agtooda ay aad u ilaaliyaan wax kasta u huraan oo la yiraahdaa shay duu qiimo wax qiimo leh buu noqdaa inta badan kala xulidda ashyaada qiimaha leh ama lagu tilmaamay waxaas ma qiimo leeyahay mise kaas qiimo ma leh waxay u khuduucdaa baa la kala raacdaa hadba dadku falsafada iyo mabaadi'da ay aaminsan yihiin iyo nolosha bulshada meel ku nool siday u aragto ayaaba xadida shayga qiimihiisa marka warka markaan soo ururino qiimo macnaheedu waa wax kasta oo wax loo huraa loo oran karaa waxaas waa wax qiimo leh wey insaanka haddaba asligiisa ustaad ma waxa u salaysan in uu qiimo leeyahay hadduuba leeyahay ma tahay qiimo looga baahan yahay in uu kor qaado bismillahir rahmanir rahiim bani aadamku qiimo ma leeyahay ustaad haddaynu eegno mastarka ugu weyn ee qur'aankeena kariimka ah iyo ilaahay oo makhluuqaadkan abuuray qiimaha uu bani aadamka siiyey waa qiimo aad iyo aad u sarreeya weeye 6 arrimood ama 6 shahaado baa la yiraahdaa ayaa ilaahay bani aadamka ku maamuusay oo ku tilmaamay inay qiimo leeyihiin 1 waa mukarram qofka bani aadamkii 2 waa mufaddal 3 waa madmuun al-ajal wal arzaaq 4 5 waa mumayyiz 6 waa mukhtaar 6 arrimood waxa ilaahay si gaar ah u siiyey bani aadamka maxay kala yihiin 6daasi mukarram marka koobaad baa ilaahay sidiisa bani aadamka u karaameeyay mufaddalna macnaheedu wuxuu noqonayaa karaamada ilaahay wuxuu ugu daray inuu kuwii berber joogay haddana ka dheeraad siiyey labadaas baa aayad qur'aan lagu kulmiyey walaqad karramnaa bani aadama wafaddalnaahum calaa kathiirin miman khalaqnaa tafdiila waxa kale oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka dhigay madmuunu al-ajali wal arzaaq waa labada shay bani aadamka wareeriyey waxa qaxar socda iyo waxa dhibaato socda iyo waxay ka socdaan qofku noloshiisa inuu baaqi yeesho wuxuu cunana inuu helo labadaaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu damaanay adduunyada ma joogo qof bani aadam ay kaaga xirantay ajishaad adduunyada ma joogo qof bani aadam ay kaaga xirantay arsaaqdaad labadaasna waa fadli iyo deeq ilaahay bani aadamka ku karaameeyay wax la wadaagaano kalena aanay jirin madmuunul ajri wal arsaaq waa mumayyiz waa mukhtaar bani aadamku wuxuu kala soocaa oo ilaahay geliyay awoodda ah
inuu garto waxani waa qarmuun, waxani waa udgoon, kani wuu wanaagsan yahay, kani wuu xun yahay, kani wuu fiican. waxaa bani aadamka ilaahay siiyey. laakiin geedahan iyo makhluuqaadkan kugu xeeran waxaa garan maayaan. lo-da iyo geela iyo ariga iyo xayawaanaadka iyo mayeeraanku ma garanayaan waxani waa udgoon iyo kani waa qarmuun iyo kani waa qiimo badan yahay, iyo xisaabahaasi uma yaalaan. waa mumayis, waa mukhtaar qofka bani aadamka ah. mukhtaarna waxaa loo jeedaa isagaa dooranaya oo ilaahay uu siiyey awood ah inuu seexdiyo, inuu soo tooso, iyo inuu fadhiistiyo, inuu kacayo, inuu tagiyo, inuu joogaba. intaasoo la isla akhrinaya waxay kutusaysaa in ilaahay subxaana watacaala makhluuqa insaanka la yidhaahdo aad iyo aad u karaameeyey. waxaynu ognahay axaadiistu inay sheegtay kacbada dhan ee qiimaha ay leedahay, aynu ognahay in qofka bani aadamka dhiiggiisu ka qiimo badan yahay. qur-aanka mar kale waxaa lagu xusay qof in la dilaa inay la mid tahay dee dadkii o dhan oo la dilay. qof in la nooleeya, naf bani aadama la nooleeyaana inay la mid tahay bani aadamkii la nooleeyey. qiimihiisa siyaabo fara badan baa qur-aanka iyo sunnada nebigu u tilmaamayaan calayhi salaatu wassalaam. qofka bani aadamka ah qiimihiisa iyo valuegiisa. marka insaanka waxaan la yidhaahdaa sidiisaba waa wax aad iyo aad iyo aad u qiimo sarreeya weeyaan. sababtiisa ilaahay kutubta usoo dejiyey insaankan, sababtiisa ilaahay rasul usoo diray, sababtiisa ilaahay axkaam sharciya u dhigay, sababtiisa xataa dhulkan aynu ku noolay gebigiisaba ilaahay u uumay. waalarda wadacahaa lilanaam. khalqiga makhluuqan dhan arkaysaba ilaahay bani aadamkan u dhigay. aayado badan oo qur-aan saasay sheegeen. marka qofka bani aadamka ahi sidiisa markaynu u eegno waa duu qiimatin caaliya, qiimihiisu aad buu u sarreeya. danu isagu iska qaada mooyaane. marka ma la odhan karaa waxyaalaa jiri kara 1 iyo 2 ah oon ku qiimin kara insaanka ama qofka? 3 shay baa inta badan valueska ama qiimaha qofka bani aadamka ah 3 shay baa laga eegaa. 3 meelood. 3 shay hadduu qofku kulmisto, 3 shay u toosaan, qiimaha qofka bani aadamkii uu hagaagaa. 3daas shay hadday hoos u dhacaanna qofka bani aadamka qiimihiisu hoos buu u dhacaa. helitaanka horta qofka bani aadamkii uu furas helayo, nolol helayo, wanaag helayo, nolol wanaagsan adduunya iyo aakhiraba uu helayo, waxay natiijo cagsiya ku noqotaa ama si toos ah ula xidhantahay valueskiisa. markastoo qofka bani aadamka qiimihiisu kor u kaco, noloshiisa adduunya iyo aakhiraba kor bay u kacaysa. markastoo qiimihiisu hoos u dhacana, noloshiisa adduunya iyo aakhiraba hoos bay u dhacaysa. waa sida ashiyaadan maygani wuxuu tayo ku leeyahay adeegga uu bixinayo. ducodkiisu xun yahay, aanu qurux badnayn, aanu qiimihiisu lacagta la sanayana hoos bay u dhacaysaa. haddii kale neefku hadduu shilis iyo qiimo halkaasoo qurux badan yahay, harag wanaagsan leeyahay, macal leeyahay, qiimo yeelanayaa daba la iibsanayaa. hadduu baktiyayo oo lafuu ka sarreeyaanna cid lacag u hori mayso. qofka bani aadamka valueska haddaba qiimo u yeela. dadka qaarkood waxay u haystaan ustaadow in qiimaha laga keeno waxa qofku uu isu nabayo. tusaale ahaan gaari buu kaxaysanayaa, maalintuu gaarigaa wato wuxuu arkaya dadka inuu ka sarreeyo. dhar buu soo xidhanayaa, dabeete wuxuu aaminsan yahay dharkan uu xidhan yahay inay valueskiisa kor u qaadayaan. dadka qaar guri wanaagsan inuu kasoo tooso oo albaabada saa loogu kala ballaqo oo ayuu u haystaa valueska in laga keeno. laakiin valuesku xaqiiqatan kama yimaada ashyaada qofka bani aadamka ahi uu wato. oo laga yaaba dadka qaar inay indhasarcaad u dhigto, oo dadka qaar ay moodaan, oo dadka qaar qiimo waxaas u haystaan. laakiin valueska xaqiiqiga ahi 3 shay insha Allah soo wadno ayaa laga eegaa. 1 waxaa laga eegaa qofka bani aadamka ah aqoontiisa iyo waxgaradnimadiisu ma korodhaa, ma socotaa. qof wax garanaya ma yihi, wuxuu doonaba ha garanaya, aqoon ma leeyahy. هذه هو وحيابها كوباد يقفك بني آدم كيف يسكي سكر قاضي ولي نص النان مايان مدحوينة شاهلية مدحوينة وحبرت ولي نص النان مايان هجامية وحبرتية هجامية شاهلة وحبر قفك بني آدم كان رقم 1 هلك لقى قيمة يا values كيسة وأقونتي سويا لبا شيء لبا قال إسلام بقى يسكوا فقسين لقى قيمة يا وإتكس كيسي أخلاقيات كيس قفكو سيديبو قف دول قاد لويهي قف صبر لويهي قف حناقي سكانترولي كريه ويهي المهم أخلاق ذا وحلا سكول هذا سجود سيديبو قفكو وإلاليا صدح وحلا جاء قفكو مبادئ ذا وحنبارسين وامح صدح ذا شيء قفكو بني آدم كان قيمه سترى صدح ذا مركز تو كليتو علم جيسا أو ده علم وحاب ضم بكوبسنا يا سكيلسكي بكوبسنا يا حرفة بكوبسنا يا أقانتي بكوبس wuxuu qofka bani aadamka kaga soocay way dadku san iyo dhagayeen dhayaafay wada leeyin qofka soo aragtaaba laakiin waxa bani aadamka kala qiimo saaraysiinaya ee midna hawada marinaya midna waa aqoonta oo kaligeeda ma aha lagu kabay akhlaaqiyaadka oo akhlaaqi iyo qiimo badan aqoonta iyo run la socoto aqoonta iyo dulqaad la socdo aqoonta iyo turid iyo naxariis la socoto aqoonta iyo
halgan iyo dadaal la socdo aqoonta iyo sabir la socdo waka akhlaaqiyaadka marka lagu daray aqoontu macna sameynaysa ثالثا qofka mabaadi'da wax xambaarsan waa maxay مثلا ma wuxuu yahay qof dilnimada aqbala ma wuxuu yahay qof hoosaynta iyo liidashada aqbala ma waxyaabo badan oo saas ma wuxuu yahay qof ka horumariya dhooniga nolosha marka kale muhiimka ah siyaabo badan oo kala marka loo garan kara qofka mabaadi'da iyo principleska wax xambaarsan yahay ama uu wato marka saas loo qiimeyn karaa qofka bani aadamka ah iyo qiimihiisa uu goynaya wasaas inuu buuran yahay inuu dhooban yahay maaha inuu cad yahay inuu madow yahay toona kuma xal aad iyo aad hadal baa jiro wuxuu xasuusiyey hadal ay soomaalidu badanaa isticmaalaan oo ah waxaan qiimo yeelanayaa ama waxaan meel gaarayaa markaan helo saddexda cadcad gabar cad gaari cad iyo guri cad awhaam wey haddaanu sidiisa ulahayn qofku qiimo saddexdaana ka dhex baxaya isagoo qiimo aan marka isagu qiimo leeyahay values leeyahay saddexdaaba uuna heli karaa uuna dhaqi karaa haddii laakiin isagoon isagu values lahayn saddexdaa la dhex geeyo uu kasoo dhex baxaya maalik ibnu nabi aragtidiisa ku yar ayido adayga raaliya maalik ibnu nabi aragti cajiiba buu lahaa wuxuu lahaa bani aadamka qiimihiisa sida aqoontu xadiidu sheegayo wuxuu lahaa haddii caasimadaha caalamka caasimada jabaanka oo kale matalan Tokyo saasaan u malaynaya tusaalaha inuu ahaa haddii laga soo qaado buu yidhi 500 oo qof oo la keena saxaro bannaana 500 oo qof oo afrikaan ah ama wuxuu yidhi dadka cawaanka ala qaado waddanka doonaan ka soo jeedaan ama afrikaan noqdaan cid kale noqdaan 500 oo cawaankaana la geeyo caasimadii kadib loo qabta 3 sano 4 sano kadib waxaa la arkayaa qoladii cilmiga lahayd ee aqoonta lahayd ee caasimada laga keenayna iyagoo dhulkii nolol ka suura geliyey heeray gaadhaba qoladii kalena iyagoo intiina jajabiyey wasakhna ka dhigay wada saxarna ka dhigay baa la arkayaa buu yidhi marka qiimaha qofka bani aadamka wuxuu daba socdaa aqoontiisa akhlaaq lagu kabay thalithanna principleska iyo mabaadi'da uu xambaarsan yahay lagu kabay soomaalida aynu maanta dhex joogno cidaynu la hadlayno waa iyaga waxaa jira dhaqan aad aan ugu arkay oo ah in qiimaha insaanka lagu xidho inta uu kolba been sheegayo ama si kale aan u dhigo waxaad arkaysaa mararka qaarkood qof runta iyo ku wanaagsan oo daacad ah markaasaa lagu xamanayaa hebel waa daacad ruuxan dhabcaalka ah iska hadlaan waxba ma macaaneyn karo ma khaameyn karo qofkii beenta sheegaya saa u daldalayana afkiisu wax ku goostaa hebel baa la idhaahdaa so qiimihii insaanka waxaa lagu xidhay been halka qiimo ridkiina lagu xidhay runtiisa uu sheegayo aad iyo aad waa xaqiiqo jirta weeyaan soomaalida keliyaba maahay waxaad moodaa caalamka oo dhan inay sidaa tahay waxaanay tilmaamaysaa xadiis nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamadaha saacada waxaa ka mid a yukhawanu alamiin wa yu'tamanu alkhaa'in qofkii amiinkaana khaa'in bay dadku u arki doonaan iyo mid aan waxba sheegayn aan macno lahayn qofkii khaa'inka ahaana kor baa loo qaadi doonaa waa saad sheegayso magacyaa xataa loo bixiyo xaaraantii baa magacyo macmacaan loo bixiyey beentii waa saa sheegaysa u macaaneeyey iyo u sawiray iyobaa la odhanaya erayo noocaasaa loo samaynayaa laaluushkii dhacdhac iyo caana iyo waxaasaa loo bixinayaa xataa xaaraantii baa magacyo markaa aad u qurux badan si dadku u aqbali karaan loo samaynayaa waxaa marka saan xadiidka ku arkayna dadka waxa ku fara badan doona in munaafiqnimada iyo inay iswaafaqaan daahirka iyo maxaa daahirka iyo baadinku inay iskhilaafaan weeye munaafiqnimada maaha dabcan tii weyneyd maaha qofku inuu gaalnimo qarsadaa taa ka hadli mayno taas dee qofkii iyadoo u bareerayo halkeeda waa gaalnimo weyn taasi laakiin badanka muslimiinta waxa ku badan inaanay iswaafaqsanayn waxay sheegayaan iyo waxay uurka ku hayaan way ku ammaanayaan hoostana way kaa nacdalayaan haddii aan soo wada hadalla dee jaarkadaasoo hoostana wuxuu leeyahay ilaahu yahay dhaafiyo kale telefoonkaad ka soo garaay uu ku arkayaa kaa qaban maayo hadhowna wuxuu kule wallaahi inaanan ku arkayn iyo bilah wuna ku arkay xaqiiqatan waxaasoo kale waxaa la dhahdaa waa nifaaqa camaliga ah waa waxay aad uga baqi jireen saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibn khadaab radia allahu canhu xudayfa u tego wuxuu ku leey ilaah baan kugu dhaarshay munaafiqiinta miyaa laygu daray munaafiqiintan uu sheegaya ma aha inuu gaalnimo qarsanayo waa muwaafaqatu alqawli lilficl inay iswaafaqaan qofka ficilkiisa iyo hadalkiisu waa ka yidhi xasan albasri waxaan soo gaadhay 40 saxaabi dhammaantood munaafiqnimay ka baqan jireen munaafiqnimada la sheegaya waa in camalkooda iyo qowlkooda iswaafaqi waayo mar buu arkay balad xudayfa isagoo nin habaarayo oo ilaahu munaafiqiinta baabii markaasuu yidhi mahmah buu war naga habaarin adeer munaafiqiinta haddii la habaaro dhulkaaba cidla nagu noqonayo buu
waxaa la yashiiru ilaa kathratihim wuxuu tilmaamayay inay fara badan yihiin marka dhaqankaas waa dhaqan aada u liita dabcan wax kasta oo waxyigeenna samaawiga kasoo horjeeda quruxna keeni maayo qiimana keeni maayo xaqiiqadu siday tahay waa laga yaabaa dadku inay dhibsadaan mararka qaarkood laakiin haddana aakhirka qofka xaqiiqada iyo runta iyo hadalka toosan ku dhawaada isaga unbaa qiimo leh qofka dadka ku idhaahda maya tusaale ahaan waxa ma qaban karo ayay 100 jeer ka jecel yihiin qofka intuu idhaahdo waan kugu qabanaya caawiyo beriba la warwareega beenu sheegay aan soo wada hadal saakuune waxay ka jecel yihiin qofka idhaahdo walaal hawshaa ma awoodi karayo ama waan awoodi karaya xilligaa igu kaalay marka xaqiiqada iyo valueska iyo qiimuhu wuxuu ku xidhan yahay in aan qofka duufaantu qaadin oonu isaguna waa reer magaale ula wade waa inuu sida saxda jaadada ku sugnaado saasuu ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba qiimo kaga yeelanay ustaadii noloshan korkeyga intaad ku nooshahay waxaa dhacaa culaysyo fara badan oo qofka soo waajaha ha noqoto markaasi mid meeluhu ka shaqeeya ah amaba ha noqoto cidda ku hareeraysan uu la nool yahay amaba ha noqoto baraha bulshada ee maalin kasta u dhex taagan yahay taasi haddaba saamaynta ay ku leedahay siduu u ilaashan karaa qiimihiisa isagoo markaasi nolosha ku dhex jira aad iyo aad baad umahadsan tahay qaybta ku saabsan su-aasha ku saabsan qofka bani aadamka ahi duruuftan adagee uu ku nool yahay sidee buu qiimihiisa u ilaalin karaya ee mararka qaarkood qofku xataa isagoo wanaag samaynayaba bulshadii uu kala kulmayo cagsigii xumaano wanaaggiisiiba xumaan u dhalayo waxa ay noqonaysaa hal shay haddii uu qofka bani aadamkii fahmo marar badanna waa ku celceliya hal shay hadday u fadhiisato bayskaas qiimihiisu waa u ilaashamaya duruuf kastuu dhex joogo haddii uu bayskaasi ka lumana duruuf kastuu dhex galaba uu ku milmaya waa min ayna yaakhud alqiima wa min ayna yastamiduha halkuu ka soo qaataa horta qiimihiisa hadduu aaminsan yahay qiimihiisa inuu kasoo qaato gaari yar uu kaxaystay ama meeluu caawa u casho tegey dad uu yar booqday dhar aanu xidhan jirin oo uu xidhay magaalo hiblaayu safar ku tegey iyo dadka weydiiyeyba sida dadka qaarkood waa kuwa social media kusoo qoraya sideed ii aragtaan iyo maxaad iga aaminsantihiin iyo bani aadamkaa kale iyo hadduu moodayo qiimihiisa inuu qofku ka qaadanayo weligii qiimana ma ilaashan karo qiimana uma sugnaanayo waayo mar kasta wuxuu curdo u yahay hilib besil wuxuu u jilicsan yahay dadka hadalkooga dadku waxay idhaahdaan laba qof hadday ku idhahdaan beenaale khaayina baa tahay khaayin buu isqoraya subconscious mindkiisana uu burburaya iyo maskaxdiisa damage wey baa soo gaaraya laba qof hadday been ku ammaanaan oo idhahdaan oo balaaya kaa dhacday ninkaaga badda milix macaaneeya waxaa laga yaabaa awhaamtahay inuu isku akhriyo oo lu go-o bani aadamka kale mar kastoo qofku bani aadamka qiimihiisa uu ka qaadanayo uu lu go-aya marka maxaa la doonayaa yastamidu alqiimata min cindi illaahi wa min nafsihi uma min nafsihi ilaahay buu kasoo qaadanaya qiimihiisa kitaabka iyo diintaas isku ilaalinaya ilahay wax inoo soo dejiyey intaa wixii isaga ilaahay siiyey ilaahay hanti ahaan uu siiyey naftiisa iyo waqtigiisa iyo caqligiisa iyo qiimihiisa iyo enerjigiisa iyo daaqadiisa intaasuu isu kaashanaya kadibna wuxuu ku dadaalaya inuu intaa qiimo ku samaysto qiimaha rasmigana naftiisu ka qaadanaya qiimaha rasmigana wuxuu ka yimaadaa min adaakhili lilkhaarij adigu kaa imanaya markaasuu dadka saamaynaya ee ma aha mid dadku kugu nanabayaan maa hadday xataa kugu nanabaanna wax sii joogaya ma hadday bilada ku saarsaaraan adigoo beenaale ah oo been badan hadday bilada ku saarsaaraan ay halkaa kaaga soo qoraan waa run leh oy koodh beena kuusoo xidhaan qurux badan beentii baad sheegaysaa sooma laba nin aada u saaxiib ahaaba midba balaayada wuxuu ku qabay beenta markaasuu yidhi niyow kii kalaa ku yidhi niyow aadha beentan aad sheegaysa maad inaga daysid oo xataa haddaad sheegaysa maad mid run yar eg sheegtid buu ku yidhi markaasuu yidhi haa aad naga macaanaysid wuxuu yidhi niyow iga qabsatayoo ma sheegi karee bal waxaad samaysaa mar hadda aragtaanoo geer beena ku jiray baraaruji kii kalaa yidhi waa yahay sheeku ka sheegay markaasa wuxuu waxaanu dhisnay masaajid 1,000 mitira markaasuu kii kale yidhi moogta suri balliciisuna 1 mitir yahay masaajidka dherarkiisuna 1 mitir yahay balliciisuna 1 mitir yahay maxaa ku tukanaya ma quraan baa lagu ururay marka qofku haddii lagu nannabo waxaanu lahayn waxay noqonaysaa in lugooyo naftiisana lugooyo dadkana lugooyo halka qodobka ugu dambeeya ku gabagabeynaya waxa weeye dadku badankoogu mushkiladda ugu weyn waxay ka haysataa naftooda runta uma sheegaan runta isuma sheegaan maxaa keenay in runta isu sheegaan maba is haleelaanba qofku ama dad buu ku mashquulsan yahay inta yar saarana telefoon buu maba fadhin karayaba qof haddaad weydiisad ku tirada goorma kuugu dambeysay 5 minute ama 10 minute oonad waxba qaban ood saa meel iskaga fadhiisato waxa laga yaabaa inuu ku dhaho long time maan ragartaas noocaas marka waxaan mar walba ku talin lahaa dadkana u sheegaa bal 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo oo noloshaada maalintii ka mid a waxaad ugu tala gashaa lita'ammuli faqad inaad wax u fiirsato xisaabtanto bas mushatataadka iska yar xid telefoonka iska yar xid
masaajidka safka daba fadhiiso, maqsinkaaga gaari haddaad wadato iska dhexgal, meelaha haddaad hoteelada fadhido meel yaroo gaara fadhiiso, 10 daqiiqo waxaad sir weydiisaa maxaa maanta kugu qabsoomay, maxaa shalay kugu qabsoomay kaa tegey, maanta maxaad haysaa, berri oo soo socota maxaa kuu meel yaalla. bal intaa ha isweydiiyo qofku si fiican buu haleeli doonaa markaa qiimihiisa rasmiga ah. duquudda iyo culayska hareeraha bulshada ka xigaana waxba saameyn maayaane, hareeruhun bay ka dhaafdhaafiyo isagaa dadku hogaami doona. wax walba waa caadi, noloshu waa caadi, dhimashadu waa caadi, adna waa wax walbana waa caadi, caadi ibnu caadi. wax caadi ma jira noloshu xisaab bay u baahantay. 2+2=4 bay noloshu doonaysaa. waxay doonaysaa sax iyo khalad iyo xagga loo socdo qofku inuu iska qiimeeyo. marka su-aashaana ustaadow intaasaan kusoo afmeeri lahaa. waxaa jira aragtiyo ama fikrado marka qiimaha dadka laga sheekeynayo kale, hebel kirismuu leeyahay, uu saameyn badan yahay, qiimuu leeyahay, amaba waxa weeyaan qof daatadiisu ay qiimo leedahay isaga laftigiisu, qofkaasi waa maasha allah sare. mafaahiimta noocaasa ma leedahay markaasi qayaxitaan soo dhaweynaya fahankeyga? waa runta dadka qaar karisma yidhaahdaan, fulan saameyn buu leeyahay, haybad buu leeyahay baa mararka qaar marka la isku soo ururiyo waa alfaad kala duwan, macno keliya tilmaamayso. waa qof qiimo leh, values. qof baa qiimo ku fadhiya, qof baa markuu soo galo dadkii fadhiyay wada eegayaan, ay wada salaamayaan. inkasta oo ay macaayirta ama halbeegyada qofka lagu qiimeynaya bulshooyinku ay ku kala duwan yihiin, sida xalqadda xagga hore aan kusoo sheegay, oo laga yaabo qof xil haya tusaale ahaan, isagoo dadka kii ugu liitaya tusaale ahaan cilmi iyo cibaado iyo camalba, oo waxba aan baran oo zero haddii xil loo dhiibo, in dadku xilkaasay aada u salaamayaan. وقبل الناس يده تقبيلا قبل عجيبة جريجريو هذا تو قيد ركنا يعني سيدي كورني marka wax xilka waxay dhunkanayaan horta maaha shakhsiga maaha. mararka qaar kood qof aad u qiimo badan oo values leh waxa laga yaabaa inaan waqtooda qiimo kala hayn sidii aad soo sheegaysay ay beenaalahba u yaqaaneen qofka wanaagsan. warka kooban waxay isugu imanayaan qof values leh ama qiimo leh, qiimihiisana dadka uu kula nool yahay bulshada uu la nool yahay si wanaagsan oo ay u gaadhay positive, si wanaagsan oo positive ay u gaadhay unba ama charisma laga cabiraa qofkaas charisma uu leeyahay. inkastoo malaha dadka xagga tacaabiirta wejiga iyo sida qofku labiska u xidhayo waxa ay ku sheegaan kham buu leeyahay charisma waxyaabaha ay ku fasiraan oo siyaabo badan oo kale loo dhigo. waa qofku saameyn wanaagsan oo dad keenaysa inta ku xeersan inuu ku saameeyo bay ku soo wari karaan. guntii gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeenaynu soo gaarnay, waxaa jira dadina dhegaysanaya oo mushkilada fara badan ay noloshooda ku dhacday, gaadhsiiyeen heer ay ka quusteen inay soo ceshadaan qiimihii iyo qaayihii ay naftoodu lahayd. bal dadka markaasi tawjuhaadka iyo tilmaamaha aad siinayso gabagabadii maxay tahay؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. qof kasta oo nolosha gaf iyo dhibaatooyin ku dhaceen ama mararka qaarkood ay sagxada la tagtay, bishaarada ilaahay baa siinana tabaaraka wa tacaala. ilaahay baa addoomihiisa u dhawaaqay wuxuu leeyahay addoomahaygii nafooga ku xadgudbay oo ha quusanina, ilaahay baa dembi oo dhan dhaafe, ilaahay u soo noqda. heer aanad sawiran karaynin qofku xataa hadduu ka gaadho heer aanad sawiran karaynin, waa ilaahay subxaana wa tacaala cafiskiisa. heer aanad inxitaadka iyo xumaanta iyo hooseynta qofku heer usii dhaafaaba aanu jirin xataa hadduu ka gaadho ilaahay u noqdo, xadhigga ilaahay qabsado, in yar kadib uu ciisoobaa un yactazu biciisati illaah, ilaahay ciisadiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisu ku ciisoobayaa. waxaa tusaale loo soo qaataa qisad dariif jiddan ah. waxaa la yidhi laba ninoo labaduba tuug bay haayeen, adhigay xadi jireen, adhiga tuulo yar bay ku noolaayeen. dabeeto odayadii baa waxay ogaadeen labadaa nin ee xoogga ah ee layska baacin karayna dhallinyarada ahi inay adhiggii magaalada dhameeyeen. kadib waxaa laisla gartay in dhallinyaro kale loo suro, labadii nin lasoo qabto la ciqaabo. ciqaabtoodii odayadii tuulada joogay waxay kaga taliyeen halkaa lagaga qoro siin kha oo loo jeedo saariq khuruuf, waa ninkii wanka xadayey. dabadeeto si dadkana loogu garto oo ay u ceebeeyaan. muddo kadib mid magaaladii buu iskaga cararay, markii kasoo horbaxaa waa saariq khuruufta la guray, buu iskaga cararay magaaladii iyo meel kalu tegey. midna magaaladiisiibuu iska joogay, laakiin tamasaka bixablillaah, toobad keenay, masaajidku iska galay, uu cibaadaystay, xadhigga ilaahay buu qabsaday, qof toosan oo qiimo badan buu noqday. muddo dheer kadib ninkii oo calaamado khayr oo aada u wanaagsan ka muuqdaan
ayaa laba nin oo taariikhdaa horena aan garanayn taariikhdii xumaydna meesha ay ka baxday oo dadkii iloobeenba muddo dheer kadib waxyaabaa waxay isweydiiyeen niyo ninkan sheekha nuure ee quruxda badan la iimaanku ka muuqdo talo maxaa wejiga siin kha loogaga qoray kiibaa wuxuu yidhi niyo ma garanayo laakiin waxaan u malaynuun in saaci khayr looga jeeda buu yidhi yaa labadii xaraf laftoodii rumsigii ama icoonkii lagu sameeyey taas maradhalinyaradu aad u fahmayaan loogadii lagu sameeyey ahayd xumaanta loogadii ayaa looga wanaagsan isu bedeshay bilaa markii dambe qof khayrka caan ku noqday dadkan miidiyaha iyo dhalinyaradii maanta xumahii iska duubayaan foolxumadii laga duubayo ay waxyaaba aan wanaagsanayn qorayaan sheegayaan arrintaas ay noqonayso jabiinkooga iyo dhafoorkooga wax ku yaal dabcan maanta dhalinyarnima riixaysa laakiin berito hore waxay gaari doonaan heer ay yidhaahdaan ahay war maxaa waxaa igu watay waxa ka caga dhigtaan maantana valueskii qiimahooda ha ilaaliyaan adduunyadu maantu maaha waa maalmo fara badan sidaasoo kale haddiiba ay dhacdayna xagga allaha u noqdaanoo yactazuu bicizati illaah ilahay xadhiggiisa ha qabsadaan weligii duloobi maayo qof xadhigga ilaahay qabsaday sharaf karaama adduunyo aakhiraba wuu ka faa'iidayaa taana sidaas baynu kusoo afmeeri lahayn ustaad waxaan malaynayaa su-aalahaagii ay dhammaadeen waa sii eegi doonaa maasha allah jazaaka allahu khayr halkaanban waxaan ku dari lahaa sidoo kale dadka aad iyo aad tiktok iyo meelaha isticmaala in ay u fiirsadaan waxay soo dhigayaan ay maanta soo baahinayaan bal keliya ka fikir 10 sano kadib waa wax yar bal haddii aad is arki lahayd bal waxaad ku hadlaysa iyo maalayacniga xataa saad u eeg tahay iyo waxyaalo badan bad odhan lahayd ahay ammaan ka daaya maalinta soo bal maanta dhowr jeer u fiirso waxaad inan yaho aad soo baahinaysid meelaha soo dhigaysid si aadan beri uga shalnayn takhayal keliya caruurtaadu hadday arki lahaayeen bal maxay odhanayaan ilmahaagu saaxiibkii ku leeyahay aabbahaa beriga ma xasuustaa 2024 si isku leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun musiibo ustaad jazaaka allahu khayr aljazaa wa ahsan allahu ilayk waxaan rajaynayaa in insha allah idinkuna aad si qurux badan uga faa'iideysan doontaan barnaamijkan waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii saasoo kale markasta waxaan idinka codsadaa insha allah mawaadiicda dambe ee rabtaan inaad markasta commentiga noogu soo qortaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa bilow capital oo markaasi ahayd suurtageliyihii barnaamijkan markastana ku dadaasha sidii wanaagan idiin soo gaari lahaa waxaan idinka rajaynayaa inaad commentiga hoose booqataan pagekooga rasmiga ah sidoo kale subscribe tirahdaan channelkeena halkaa kaga xidhnaataan wanaagana sii faafisaan qiimaha nafteenana dib aad u raadisaan aad baan idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu